Hi ciyaarta soo dhawaada muuqaalkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa Mark wiilka magaciisa waxaa la dhahaa Mark wuxuu joogiyaa xafladan ay waxay ku weeliyaan asxaabtiisa xafladan ay wuxuu ku qaadanayaa waqtigiisa Mark xafladan ay wax isku baranayaan xafladan gabarta isku barteen way soo diidi doontaa waxayna dhihi doontaa iima qalanti Mark oo xanaagsan ayaa isla markii ka soo tagaya xaflada wuxuuna imaanayaa xaafadiisa Mark markuu imaado xaafadiisa wuxuu furanayaa laptopgiisa wuxuuna daawanayaa muuqaalo anshax xumo ah sidoo uu daawanayo muuqaaladii Mark uu seexanayaa subaxdii alasaay Mark kicinayso hooyadiisa waxay u sheegi doontaa maanta inuu imaanayo adeerkiisa waxayna ku dhigi doontaa hurdada ka kac oo isdiyaari isla markii waxa arkaynaa Mark adeerkiis oo imaaday xaafada waxaana loo sameeyay qado waxaana ku wehelinayay xafladaas eedadiisa oo adeerkiisa qabo familkii wuxuu waqti ku qaadanayaan qadadaasiti waxayna ku sheekaysanayaan qadadaas Mark hooyadiisa waxay u sheegi doontaa eedadiisa Gina inay aasanayso Russia oo u noqonayso dalka Russia waxayna u sheegi doontaa halkaas inay ugu soo tagtay gabar 14 jir ah ee dhashay iyada waxayna u sheegi doontaa gabartaas inuu dhalay adeerkiisa maalmo ka bacdi waxa dib ugu soo noqonaya dalka Gina oo ah eedada Mark oo qabo adeerkiisa dadkoo dhan waxay wada joogeen airportka waxaana la wada sugayay imaashida ee imaanayso Gina oo ah Mark eedadiisa waxaana Mark eedadiisa la socday waqtigaas gabar yar oo jirto 14 sano Mark markii ugu horeysay wuxuu kulmayaa in adeertiisa Natasha Mark wuxuu inaal raaci doonaa oo keeli doonaa in adeertiisa Natasha Mark adeerkiisa wuxuu samaysan doonaa guur labaad waxaana mar kale ay samaysanayaan asiga iyo xaaskiisa guur labaad Mark adeerkiisa iyo eedadiisa ayaa waxay samaysanayaan guur waxaana ka soo qayb galayo dhammaan familka markii xafladda dhamaato waxa la wada aasan doonaa guriga Mark adeerkiisa waxaana halkaas ka dhici doonto qado sharfeed waxaana ku wada qadeynayo familka dhammaan dadka oo dhan way qadeynayeen wayna sheekeynayeen laakiin Mark wuxuu indhaha la raacayay in adeertiisa Natasha Mark wuxuu u soo wadi doonaa xaafadiisa Natasha wuxuuna tusi doonaa Mark qolkiisa Natasha ayaa Mark waxay weydii doonto maxaa ku samaysaa qolkaaga waqtiga ugu badan Mark ayaa wuxuu dhihi doono waxaan ciyaaraa video game mararka qaarkoodna waxa ku aqrista qolkayga cashiradeeda Natasha ayaa waxay weydii doonto su'aal kale waxayna ku dhigi doontaa qolkaaga ma ku balansataa gabdhahaas oo ah kuwa aad la sameysay xiriir Mark ayaa wuxuu ku dhigi doono Natasha adigu waa yartahay waxaana jirtaa 14 sano maxaa ku baray waxaas Mark ayaa ku raaxaysan doono wuxuuna dhigi doonaa wax baro intaad waxaas amal ka hadli lahayd waxyaabahaas oo kale kuma fiicno ee ka bixi maskaxdaada laakiin Natasha ayaa isla markii waxay dhigi doonto adiga waxa jirtaa 16 sano maxaa ku baray waxaas Natasha ayaa waxay ku dhigi doonto waxa jira adduunka dad aad u fara badan waxaana noolaha loo sameeyay lab iyo dhidig waana la isku talagalay Natasha ayaa Mark wuxuu ku dhigi doonto ragga wuxuu leeyahay dareen wuxuuna dareemaa dumarka sidoo kale dumarku waxay leeyihiin dareen waxayna dareemaan ragga Natasha ayaa wuxuu ku dhigi doonto aniga hadda mii dareentay laakiin Mark ayaa wuxuu dhigi doono waxa ku dhalay adeerkay ee iga xisho wax amal leh hay weydiin mar dambo Mark ayaa wuxuu dhigi doono waxa taada in adeerteeda waxaana ku dhalay adeerkayga aan jeclahay iyo eedadeeda laakiin isla markii waxa soo bood doonto markay maqasho magaca eedada Natasha waxayna ku dhigi doontaa hadhihin eedo maahan taas eedo manaahan hooyadeeda waa qof xun hooyadeeda waxayna dhihi doontaa waa naagaha tan ugu raqiisan hooyadeeda waxaana marar badan ku arkay aabaheega nimana aheenin Mark uu iska aamusnaay waxna uguma jawaabayo waxayna la naqanaysaa arrintaasi mid waali ah maalin maalmaha kamid ah Mark waxa uu imaanaysa qolkiisa hooyadiisa waxayna ku dhihi doontaa Mark ma aragtay Natasha Mark wuxuu dhihi doonaa ha waan arkay Natasha waxay u sheegi doontaa Mark hooyadiisa Natasha inay ku cusub tahay magaaladan ee kala aqaanin magaaladaniti waxayna kala ugu dari doontaa kuma laho wax asxaab ah laakiin adiga soo dhaweyso gabarta adeerka dhalay kana dhigo saaxiib koowaad haddii u baahan tahay in la soo wareejiyo meelahan soo wareeji meelaha waqtigeeda ugu badan adiga kula joogto waa in adeerta ay ka taxadir waxariska bacdi waxa arkaynaa Mark oo soo baxay Mark wuxuu imaanayaa xaafada cusub oo adeerkiisa halkaas ayuu wuxuu u imaanayaa Natasha hooyadeeda ayaa wuxuu u sheekay doonto dabeecadaha Natasha waxayna ku dhigi doontaa waa qof dabeecad xun gabarta adeerka u dul qaado waxa dhalay adeerka waxayna u soo kici doontaa Natasha hooyadeeda waxay u gargaraacaysaa Natasha waxayna ku dhigaysaa albaabka fur waxa isla markii albaabka furayso Natasha wajigeed waxa laga dareemayaa cari aad u fara badan Natasha hooyadeeda waxay ku leedahay Mark ayaa raba inuu ku soo wareejiyo oo ku soo kala tuso magaalada ee maraacaysa Natasha hadalkeeda dhan kama jawaabayso hal mar ay soo cararaysaa waxayna u cararaysaa banaanka isla markii waxa ka soo daba cararayo Mark Natasha wuxuu ku qabanayaa meel bridge ah oo buunda ah wuxuuna weydii doonaa wax ka qaldan iyada waxayna ku dhigi doontaa hooyadeeda waa qof xun mana jecli aniga hooyadeeda aad ay isku nacabnahay hooyadeeda Mark Natasha wuxuu soo wadi doonaa magaalada wuxuuna keeni doonaa oo soo marsi doonaa guri oo degan yahay saaxiibkiisa Mark Natasha wuxuu keenay guriyaha ka furan kor Natasha waxay jeceshahay guriyaha ka furan kor way soo baxayaan markay soo baxaan waxa ka helaya Natasha Mark saaxiibkiisa Natasha Mark waxay weydii doontaa su'aalo ku saabsan saaxiibkiisa laakiin Mark uguma jawaabayo su'aalahaasi Mark wuxuu keeni doonaa Natasha maqaayad halkaas ay ku wada cuntay doonaan labadooda markay ka soo tagaan maqaayada Mark wuxuu keeni doonaa Natasha xaafadeeda waxayna ku dhigi doontaa Natasha ha imaanin gurigeyga biri aniga ayaa ku imaanaya biri waxaan kugu imaanaya
gurigaaga. Maalintii ku xigtay Mark uu aqrisanayo cashiradiisa ayaa waxa uu imaanayso Natasha waxayna soo gargaraacaysaa albaabka. Wuxuu ka furayaa Mark albaabka. Natasha way soo galaysaa wayna fadhiisanayaan labadooda meesha ay ku wada sheekaysanayaan mar kale. Natasha iyo Mark waxay soo aasanayaan magaalada waxayna soo qaadanayaan laba baaskiil. Mark wuxuu la kulmayaa asxaabtiisa. Asxaabtan oo ah kuwo ay isla cabaan daroogiska. Mark waxaa la siinayaa daroogis waxaana gashanayaa jeebka. Asxaabtii Mark ay waxay weydiin doonaan qoftaan oo la socdo laakiin Mark kuma jawaabayo. Mark iyo Natasha waxay ku soo noqonayaan guriga. Natasha ay waxay weydiin doonto daroogiska goormo bilaabay iyo wuxuu ka dheefiyo. Laakiin Mark ayaa wuxuu dhigi doono daroogiska dhadhami waa arkaysaa wax laga dheefo. Labadoodu waxay fadhiisanayaan guriga waxayna cabayaan daroogis. Mark wuxuu aqrisanayay cashirkiisa. Natasha ayaa waxay weydiinayso laabtoogiisa. Mark ayaa wuxuu dhigi doono isticmaal laabtooga. Natasha waxay fadhiisanaysaa laabtoogii agtiisa. Natasha markay kala furto laabtoogka waxay ku arki doontaa muuqaalo anshax xumo ah. Mark ayaa wuxuu ka tagay muuqaaladaas asigoo daawanayo oo ka daawanayo laabtooga laakiin laabtooga ma daminin wuxuu u tagay meeshiisa. Natasha muuqaaladii ma daminayso waxayna dib u daawanaysaa muuqaaladii laakiin Natasha hal mar ay waxay galaysaa Facebookeeda waxayna soo bixi doontaa sawiradeeda. Sawiradaas oo ah kuwo akhlaaq xumo ah waxayna tusi doontaa Mark. Natasha Mark waxay dhigi doontaa ma ka heshay sawiradan laakiin Mark ayaa asiga dhan ahay mid iska aamusan mana aqoonin wuxuu ugu jawaabo. Natasha waxay bilaabaysaa in iska saarto dharka waxayna ka xishoosinaysaa Mark. Waxay wada qaadan doonaan labadooda waqti. Maalintii ku xigtay waxay soo aasi doonaan magaalada waxayna soo wada qaadan doonaan baaskiilo. Labadooda waxay dhuminayaan waqti aad u fara badan waxayna ku soo baashaalayaan magaalada ayagoo tagayo meelo madxafo ah iyo meelo kale. Natasha hooyadeeda iyo aabaheeda waxay aasanayaan magaalo kale waxayna u aasanayaan arrimo shaqo ah. Natasha waxay imaanaysaa Mark xaafadiisa waxayna imaanaysaa xaafada adeerkeeda. Natasha markay timaado xaafada adeerkeeda waxay ka cuntaynaysaa xagga waxayna u soo raacaysaa Mark qolkiisa. Mark ayaa waxay ku dhihi doontaa ma kula joogi karaa inta nolosha ka dhiman. Mark ayaa wuxuu ku dhahayo waa ila joogi kartaa inta rabtiin noloshaada. Labadooda waxa dhex maraya sheekadaas oo ah shukaansi. After shukaansi waxay u sheegi doontaa Mark wax ku saabsan hooyadeeda waxayna u sheegi doontaa arrimaha dhabta ah ee hooyadeeda. Mark waxay u sheegi doontaa adeerkiisa in la khiyaanto iyada hooyadeeda waxayna ku dhihi doontaa markasta guriga waxay ku balansataa niman markuu maqan yahay aabaheyga ama adiga adeerka. Natasha waxay u sheegi doontaa inuun wax ka ogeynin iyada aabaheeda arrinkaas. Mark jawaab ma siinayo Natasha wuuna iska aamusaya. Natasha ay waxay ku dhihi doonto la joogistaada waa mid ka helo. Maalintii ku xigtay waxaa arkaynaa Natasha hooyadeeda iyo aabaheeda oo soo gaarayo xaafada Mark waxaana halkaas lagu sameeyay mar kale qado waxayna ka yimaadeen safarkii. Natasha hooyadeeda iyo Mark familkiisa waxa dhex maraya sheekooyin aad u fara badan. Natasha hooyadeeda waxay ku dhihi doontaa Natasha meesha miyaa joogaysaa. Natasha ayaa waxay dhihi doonto waxaan joogayaa halkan. Hooyadeeda ayaa waxay dhihi doonto waan fahamsanahay waxa halkan u joogtay waxayna ku dhahaysaa waxa iskaadkaad isku haysiin Mark. Waxay ku dhihi doontaa hadda ma iraacaysaa laakiin waqtigaas waxa isbedeshay Natasha wajigeeda laakiin waxay ku dhihi doontaa ma ku raacay waxaan joogayaa halkan. Natasha hooyadeeda ayaa waxay dhihi doonto wax walba waxa ka dambeeyay Mark waan ogaa aniga. Isla markii Natasha waxay ku soo boodi doontaa hooyadeeda waxayna la dagaalaysaa hooyadeeda. Waa la kala qabanaya waxaana qabanaya Natasha adeerkeeda oo ah Mark aabihiisa. Natasha aad ay u xanaaqsaneed waxayna ku xanaaqsaneeday hooyadeeda. Natasha waxa ku qaylinaya aabaheeda waxaana Natasha loo kaxeynayaa xaafadeeda waxayna raacaysaa hooyadeeda iyo aabaheeda. Maalintii ku xigtay Mark ayaa wuxuu imaanaya xaafada Natasha wuxuuna rabay inuu la kulmo Natasha laakiin albaabka waxa ka furayso Natasha hooyadeeda. Natasha hooyadeeda oo xanaaqsan ayaa Mark wuxuu ku dhihi doonto waxay ka fasaadisay gabarteeda waxaana gabarteeda ka dhigtay qof caasi waalidiin ah. Maalin horeyta ayay ila dagaashay waxaana ka dambeeyay adiga laakiin Mark uguma jawaabayo iyada waxaasoo dhan. Waxay iska wadatay Natasha hooyadeeda hadalkeeda waxayna ku dhihi doontaa mar dambo ma la kulmaysi Natasha yaana ku arkin mar dambo gurigan albaabkiisa. Natasha hooyadeeda iyadoo wadato hadalka waxa gadaasheeda soo istaagayso Natasha laakiin isla markii waxa albaabka lagu xirayaa Mark asigoo yaaban ay wuxuu iska soo degi doonaa xaafada Natasha. Isla habeenkii Mark wuxuu imaan doonaa xaafada Natasha laakiin Natasha ayaa waxay fadhiday banaanka iyadoo ooynayso. Mark ayaa soo ag fadhiisan doono. Mark ayaa wuxuu ku dhihi doonta Natasha waxaan u noqonayaa aniga magaaladan ka imaaday waxayna ku dhihi doontaa miiraacaysa oo miiraacaysa magaaladaas misla baxsana. Mark markuu hadalkaas maqlaayay ma hadlaayo. Mark ayaa wuxuu yahay asiga mid fikiro hadalkana ciyo kama jawaabo. Mark ayaa wuxuu u sheegi doonto inay indhaheeda ku aragtay aabaheeda iyo hooyadeeda oo isdagaalayo waxayna ku dhihi doontaa aniga ma joogi kari meeshaan waan inaa ka tagaa meeshaan waxaan haystaa hooyo aad u xun. Natasha waxay si xun u aflagaaday doontaa hooyadeeda laakiin Mark hadal dhanka ma dhahayo sheekadaasiiti. Isla habeenkaas xilli dambo waxa uu imaanayso Mark Natasha waxayna ku dhihi doontaa waxaan baxayaa bilito ee miiraacaysaa. Mark ma dhihi karo maya sababtoo ah wuu jecel yahay Natasha wuxuuna ka aqbalayaa inuu raacayo Natasha. Subaxdii alasay haddana waxa ku soo kala hayso Natasha Mark wuxuu sii doonaa Natasha lacag u aruurinayo wuxuuna u sheegi doonaa inuu raaci karin asiga wuxuuna ku leeyahay iska bax adiga kaliya. Natasha oo walwalsan ayaa kasoo tegi doonto Mark. Natasha waxay wadatay boorsada waxayna boorsada ka soo qaadanaysaa Mark xaafadiisa weel iska baxaysaa Natasha. Mark xaafada ay wuxuu ku arkayaa maalintii ku xigtay adeerkiisa iyo aabihiisa
familkiisa iyo familka dhan waxay ka wada hadlayeen Natasha maqnaashadeeda laakiin Mark uma sheegayo Natasha meel ay jirto familka maalmo ka bacdi Mark oo ka walwalsan Natasha ayaa waxa soo wacayo saaxiibkiisa oo ah midkii daroogada isla cawi jireen Mark telefoon kama qabanayo saaxiibkiisa Ruuf wuuna ku daminaya marar badan ay soo wacaya wuuna ku daminaya hadana maalintii ku xigtay Mark wuxuu imaanaya xaafada Ruuf markuu imaado Mark wuxuu ku arki doonaa Natasha oo joogto xaafadaaniti waxayna la joogtaa Ruuf ayaa Mark wuxuu ku dhigi doonaa waxa ku soo waca marar far badan waxaan rabaa inaan kuu sheego Natasha inay la joogto aniga laakiin igama qaban telefoonka Natasha waxay si xun u fiirinaysaa Mark asigana si xun wuxuu u fiirinayaa Natasha Mark wajigiisa waxa laga dareemaya cari aad u far badan Mark wuxuu fahmayaa wax kasta oo ka socdo meeshaaniti wuxuuna ogaanayaa jaceylka inuu lahayn waxaan jirin sidoo kale wuxuu ogaanayaa saaxiibkiisa Ruuf inuu qayaanay Mark wuxuu iskaga tagayaa meesha asigoo xanaaqsan wuxuuna qaadanayaa baaskiilkiisa Natasha uma jawaabayso wayna fiirinaysay Mark markuu xanaaqsanay Mark markuu xaafada imaado wuxuu ka fikirayaa Natasha halkaasna wuxuu ku waayay gabartii oo dhalay adeerkiisa وهي والبهار كجعيلك عكوي وبين سنتيسا hadaa jeceshaa inaan kasoo hadalno muuqaalada camal oo qisooyinka dhabta ah hadaa janaalka cusub tahay subscribe saar muuqaalkani sidoo u gaarid badan like saar aad iyo aad u mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh